السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما أنت وحنك هذا لينا قصة أصحاب الكهف وحي أهاين دلن يره إلهي سبحانه وتعالى رميسي إنهم فتية آمنوا بربهم. أيو إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كل يهي siday kutubta taariikhda sheegaan waxaa jiray boqor gaal ahaa oo caawudi jiray sanamyada, wuxuuna dadka ku qasbi jiray inay caawudaan asnaamta oo ilaahay qeyrkiisa la caabudo. dhalinyaradan waxay ahaayeen ilmo boqortooyo iyo dhalinyaro nolol raaxo leh. waxaa dhacday in diintii iyo iimaankii ay qaateen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ay caawudi jireen. waxaa dhacday in boqorkii gaalka ahaa uu ogaado dhalinyaradan ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha waaxidul axad inay caabudaan oo ay iska diideen sanamyada iyo shirkiga. wuxuu ugu cagajuglayay dil iyo in la cadaabi doono haddii ay ka laaban waayaan diintoodii xaqa ah, ay ku soo laaban waayaan baadilka iyo shirkiga. dhalinyaradii waxay go'aansadeen inay cararaan oo lafahoodii ama nafsadoodii ay la baxsadaan. ayaga iyo ay la socday oo mid ayaga ka mid uu lahaa ayaa israacay sida qisada ay tilmaamayso. waxay galeen godkaas oo arkayeen inay kaga dhuuma karaan boqorka iyo ciidamadiisa dhibaatada ay ku sameynayaan. asxaabul kahf dhalinyaradii ahayd markii ay godkii galeen, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay hurdo ama way hurdeen. hurdadaas oo noqon doonto mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga ilaali doono gaajada iyo oonka iyo dhibaatada boqorka iyo ciidamadiisa. way hurdeen. arrintaas markay dhacday waxaa ogaaday boqorkii gaalka ahaa sida qisadooyinka sheegayaan. wuxuu ka war helay in dhalinyaradii ay baxsadeen. intaas markay dhacday, sida quraanka uu ku kaabsanayo, waxay quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga waramayaa in dhalinyaradaas ay god galeen, in ilaahay subxaanahu wa tacaala qoraxda dhibaatadeedana uu ka ilaaliyay, sidoo kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rogrogayay si jirkooda aysan ciidda u cunin, ayna jiifeen indhahoodiina ay kala furnaayeen. wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud wanuqallibuhum daata alyamiini wa daata ashimaal wakalbuhum baasidun diraacihi bilwasiid. eygoodina asagana hurdadii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale u qadaray inuu hurdo, oo hurdo ayaa asagana lagu riday. sidaas ayay meeshii kugu jireen, ilaahayna ku ilaalinayay. ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay qofkii arkaa oo godka ugu galaa wuu ka arka kaxayaa qaabkii ahaayeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku daboolay haybad si aysan cidna ugu gelin oo ugu dhibaataynin meeshaas. kadib maxaa dhacay? sanado ayaa ka soo wareegtay. sanado, 10 sano, 100 sano, 309 sano kadib dhalinyaradii hurdada ayay ka soo kaceen. waa 309 sano kadib. waa qudradda ilaahay, waa awoodda ilaahay. dhalinyaradii way iswareysteen. imise ayaa meeshaan ku jirnay? mid wuxuu yidhi habeen ama habeen barkiis, maalin ama maalin barkeed, hal cisho ama cisho barkeed. arrintii waxay la noqotay wax aada u dhow. kadib ma aysan iska sii wareysan wax kale. midkood ayay waxay ku yidhaahdeen waxaad noo doontaa cunno aan cunno, oo way gaajoodeen. ilaahay subxana wa tacaala ayadiisa wuxuu ku leeyahay qur-aanka qaaluu rabbukum aclamu bima labithtum fabcathuu axadakum biwaraqikum hadihi ila almadiina falyandur ayuha askaa طacaama falyأtikum birisqin minh waliyataladaf walaa yushciranna bikum axada inahum in yadharuu calaykum yarjimuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada. dhalinyaradii waxay yidhahdeen ilaahay baa og intaa halkaan ku jirnay, mid idinka mida ha baxo, lacagtaas ha qaado, cunnaha noo raadiyo, weliba cunnadaha iska fiiriyo, maadaama dadka mushrikiin ay u badnaayeen, dad gaalo u badnaayeen, wax xalaal ah oo daahir ah, cunno wanaagsan ha noo keeno.
meesha waxa laga ogaanaa qofka muslimka inuu wax walba iska cunin oo cunada cunay markuu ku noolyahay wadamo gaaleed iska eego sidoo kale waxay ugu sii dareen ha isqariyo qofka baxayo yeesan qof ogaan hadayna ogaadaan wayna dilayaan oo dhagax ay nagu dilayaan ama diinteena naga saarayaan oo kufriga ay nagu celinayaan dhalinyarada wali way cabsanayaan waxay moodaan boqorkii iyo ciidamadiisa inay joogaan adduunyada 309 sano ka soo wareegtay qoladaas way halaagsantay boqor wanaagsan oo caadil ah caalamka markaan ka talinayo waliba dhulka ay joogan ka talinayo dadkuna waa dad muslixiin oo wanaagsan dadka qaar waxay sheegaan ee taariikhda qora in wiilkii dhalinyarada uu baxay cunada uu doonay inuu la yaabay wadooyinkii isbedelay magaaladii isbedeshay ashkaashi dadka iyo qaababkoodii isbedelay labiskii wixii isbedelay dadkii isaga la yaaban waxaan dhacday oo taariikhda qaar ay sheegaan in uu u tagay ninkii cunada iibinayay uu ka dalbaday inuu cunno ka iibiyo markii uu lacagta u taagay oo inuu lacagtii wax kaga iibsado uu doonayo ninkii uu la yaabay lacagta ninkan dhalinyarada uu wato waa lacag qariib waa lacag aan bahadda ka shaqeeynin wadanka waxay sheegeen qisooyinka in wiilkii arintiisa ay fadeexooday ama uu arintiisa ay gaartay dadkii oo dhan boqorkii meesha ka tilnaa ay gaartay la yaabay la yiri 300 sano ka hor waa lacagahan iyo waxaan aawadatid asagii u sheegay inuu kamid ahay dhalinyarada hadda ka hor godkaas kashay in loo sheegay 300 sano ka hor inay ahaayeen xilligii godka galayeen taariikhda qaabkaas ay qortaa laakiin quraanka faahfaahintaas tirada badan nama siinin marka waan iska sheegaynaa laakiin wixii quraanka uu sheegay ayaa xaqiiqo ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay sheegaan taariikhda marka in wiilkii dhalinyarada ah uu soo laabtay oo dhalinyaradii asxaabtiisii u soo laabtay u sheegay inta ay meeshan jiifeen ay tahay 309 sano aysan ahayn maalin barkeed arintaas markay dhacday kadib dhalinyaradii aad ay uga murkeen sida la sheego in 300 sano ka hor xilligooda ahaa oo san wadanka u joogin wax qaraabo iyo ehel noloshan ay ku adkaanayso waxay sheegeen in ilaahay ay ka baryeen inuu ilaahay oofsado waa sida taariikhda qaar ay sheegayso laakiin quraanka waxaas kuma soo aroorin kadibna ilaahay subhanahu wa ta'ala oofsaday dadkana la tusay inay ahaayeen mucjiso dad badan ay rumeeyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala mucjisadiisa quraanka wuxuu noo sheegay oo xaqiijiyay dadkii inay yimaadeen kahfiga ay isku qabsadeen ay ku murmeen ay ku doodeen lana taqidanna alayhi masjida kuwi ku adkaaday dooda قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليه مسجدا kuwi doodta ku adkaaday waxay dhaheen oo arinta ku guuleystay masjid ayaan ka dhiganaynaa meeshaas ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku sheegay masaddexi ahaayeen ayga miyaa la socday afar ahaayeen qaar kood dhahay ayga miyaa la socday laakiin culimadu waxay rajaxiyeen 7 وثامنهم كلبهم inay 7 ahaayeen aygoodana 8 ku ahaa inta ayaan ku soo gabagabeynaa qisadii asxaabul kahf waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyarada rag iyo dumar in ilaahay subhanahu wa ta'ala ay uga cabsadaan diintoodana ay ku far adeegaan ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka markuu diintiisa aqoontiisa ku far adeego faraj ayuu u furaa sida dhalinyaradaasba oo faraj ugu furay qisooyinka markii naloo sheegayna looma sheego inay tahay sheeko xariir ee waxa loo sheegaa in lagu cibro qaato lagu tusaale qaato lagu dhaqmo fawaa'idna laga helo qisooyinka markii naloo sheegayna looma sheego inay tahay sheeko xariir ee waxa loo sheegaa in lagu cibro qaato lagu tusaale qaato lagu dhaqmo fawaa'idna laga helo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.